Bismillaahi Raxmaani Raxiim wacan wanaagsan dhammaantiin meel walbo aad kala socotaan oo aad ka daawataan channelka Rayxaan Channel. Ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo cusub. Maantana waxaynu baranaynaa cashar ku saabsan luqadda Ingiriiska waana wada sheekaysi. Intaan bilaabin casharka fadlan channelka rukumo subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid. Lesson 37 ayaan bilaabaynaa waa casharkii 37. Waxa uu ku bilaabanayaa if we make comparison between English and Arabic, which language would you prefer to learn? Waxa uu yidhi if we make comparison haddii aan sameyno isbarbardhig between u dhexeeya English and Arabic luqadda Ingiriiska iyo luqadda Carabiga, which language would you prefer? Luqadee ayaad doorbidi lahayd to learn in aad barato? Haddii aan sameyno isbarbardhig u dhexeysa waa luqadda Ingiriiska iyo midda Carabiga, luqadee ayaad doorbidi lahayd to learn in aad barato? Waxa uu yidhi I would prefer waxaan doorbidi lahaa oo aan jeclaan lahaa to learn in aan barto Arabic luqadda Carabiga. Luqadda Carabiga ayaa anigu doorbidi lahaa in aan barto. Su'aal kale ayaa lagu celiyay why do you prefer? Maxaad u doorbidaysaa for Arabic luqadda Carabiga in aad barato maxaad ku doorbidaysaa? Since maadaama you are aware of aad ka warhayso English luqadda Ingiriisku is the world's first language, in ay tahay luqadda Ingiriisku luqadda koowaad ee dunida, maxaad ku doorbiday in aad Carabiga aad doorato maadaama aad ka warhayso in Ingiriisku uu yahay luqadda koowaad ee dunida? Waxa uu yidhi because sababtoo ah Arabic is the language of Islam. Luqadda Carabigu waa luqadda Islaamka. It is the language waa luqad which the Holy Quran taasoo Qur'aanka Kariimka ahi was written lagu qoray. So sidaa darteed it is the compulsory waxaa qasab ah oo waajib ah for every Muslim qof walba oo Muslim ahna waajib ku ah to know in uu garto oo uu yaqaano Arabic language luqadda Carabiga. Luqadda Carabigu waxa uu yidhi waa luqadda lagu soo dejiyay oo ku qoran yahay Qur'aanka Kariimka. Qof kastoo Muslim ahna compulsory ama qasab waxaa ku ah in uu barto luqadda Carabiga. And that is the reason waana sababta I prefer anigu aan u doorbidi lahaa for Arabic in aan barto luqadda Carabiga. Hagaag aad u mahadsan tihiin intaa inoo joogo wada sheekaysigeeni koobnaa ee luqadda Ingiriiska ahaa. Aad u mahadsan tihiin fadlan channelka rukumo subscribe saar waad mahadsan tihiin dhammaantiinaba.